بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدا وديال kusoo dhawaada wararka caalamka iyo kuwa Soomaalida kuwooda waaweyn ee Garmaal TV heesana waxaa kamid ah meedadka tahriibiyaal ay ku jiraan Soomaali oo laga helay xadka Turkiga iyo Greega daba qasaraha intuu leeyahay ayaan idin soo gudbin doonaa warka Garmaal TV waxaad kaga baga doontaan beesha caalamka ayaa ka biyadiiday boobka lagu hayo doorashada Soomaaliya hadaba kulmo ay ka bilaabeen gudaha Soomaaliya ayaan idin soo gudbin doonaa waxyaalaha kaga hadleen farmaajo iyo Fahad oo dejiyay shirqoolkii ugu weynaa ee la rabaan Axmed Madoobe hogaamiyaha Jubbaland wararka kale ee Garmaal TV heesana waxaa kamid ah ciidamada Puntland iyo Rogobeysan oo xalay ku dagaalamay gudaha magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland intaas waa qaar kamid ah qodobada ugu door garoon warka Garmaal TV iminkan u diyaar garooba ayagoo dhameystiran aan ku bilaabay meedadka tahriibiyaal ay ku jiraan Soomaaliya oo laga helay xadka ay wadaagaan Turkiga iyo Greega meedadka tahriibiyaal ay ku jiraan Soomaaliya ayaa waxaa laga helay xadka dheer ee u dhaxeeya wadamada Turkiga iyo Greega kuwaas oo tiradooda guud lagu sheegay 19 meedad ah sida ay wareysay warbaahinta maxalliga ee dalka Turkiga sida la xaqiijiyay meedadka muhaajiriinta la helay laba kamid ah waa Soomaali kuwaas oo kamid ah tahriibiyaal badan oo ku dhintay qabow daran oo ka dhacay halkaasi afar qof oo kale ayaa laga shakisay inay Soomaali yihiin ayaa sidoo kale la baaraya ayadoo bulshada Soomaaliyeed laga codsaday in gacan ka geystaan aqoonsiga meedadkaasi labada dal ee dariska Turkiga iyo Greega ayaa midba mid kale ku eedeynaya musiibadaasi oo noqotay mid aad loo hadal hayay isla markaana xanuun badan dhalisay Turkiga ayaa saraakiisha xadka Greega waxay ku eedeeyeen in kooxdaasi xoog dib ugu soo celisay xadka sidaasna ay ku timid dhimashada ninkiisa Greega ayaa arintaasi gaashaanka u daruuray wuxuuna eedda dhabarka u saaray xukuumadda Ankara oo shaacisay in ayadu ka dambeysay mashaqadaasi tahriibiyaal fara badan oo Soomaali ku jiraan ayaa inta badan ku safra xadka labada dal ayagoo siimanaya wadamada kale ee reer Yurub markana daawadayaal waxaa idin soo gudbinayna ciidamada Puntland iyo Rogobeysan oo xalay ku dagaalamay gudaha magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helay khasaare ka dhashay dagaal xalay saqdi dhexe ka dhacay magaalada Garowe xarunta gobolka Nugaal kaas oo u dhaxeeyay ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland iyo Rogobeysan oo ka ganacsada maandooriyaha khamriga israsaaseynta ayaa xooggeeda waxay ka dhacday agaarka buudada dhinaca bare ee ka xigta magaalada Garowe taasoo laga maqlay meelo kala duwan oo kamid ah gudaha magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland sidoo kale dadka deegaanka ayaa waxaa soo wajahday cabsi xoogan maadaama ay saameyn ku yeelatay israaseynta labada dhinac oo ku soo aaday xilli habeena taliyaha qaybta booliis gobolka Nugaal gaashaanle sare Ilyas Isaaq Maxamuud ayaa ka warbixiyay isfurimaadka dhexmara ciidamada ammaanka iyo Rogobeysan wuxuuna shaaciyay in ciidamada booliiska oo howlgal ku jiray israaseyn ku bilaabeen Rogobeysan ayna dib ciidamada iskaga caabiyeen sida hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu intaas ku daray in wax khasaare uusan ka dhan isfurimaadka ka dhacay Garowe isla markaana ay gacanta ku dhigeen qaar kamid ah raggii hubeysnay ugu dambeyn taliyaha ayaa carab ku dhuftay in tilaabo adag oo sharci waafaqsan ka qaadi doonaan kooxaha ganacsada khamriga ee ku sugan halkaasi Puntland ayaa waxaa ku soo noqday iskorimaadka hubeysan ee u dhaxeeya ciidamada ammaanka maamulkaasi iyo maleeshiyada hubeysan oo ka ganacsada waxyaabaha ammaanka dooriya kuna soo magaalooyinka waaweyn ee maamulkaasi beesha caalamka ayaa ka biyadiiday boobka lagu hayo doorashada Soomaaliya beesha caalamka ayaa ku hoolan sidii u joojinayay boobka hareeyay doorashada dalka kuwaas walwal baahsan ka muujiyay habkay ku socoto doorashada golaha shacabka muddada kooban ee dib u bilaabatay doorashada waxaa kulamo kala duwan la yeesheen madaxda maamul goboleeda si loo xaliyo dhaliilaha ragaadiye kuraasta ilaa imikana doorashadooda la qabtay mid kamid ah kulamadaasi ayay shalay la yeesheen hogaamiyaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor iyagoo u bandhigay tabashada ka jirta doorashada wuxuuna dhankiisa ballan qaaday in doorashada kuraasta dhiman uu u qaban doono qaab daaf inkastoo dhabahanshiisa hadalkiisa aan la isku halay karin xubnaha beesha caalamka ee Qoorqoor la kulmay ayaa waxaa hogaaminayay ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya waxaana fadhigaasi qodobadii sida adag looga lafgalo waxaa kamid ahay saamiga haweenka Soomaaliyeed ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya beesha caalamka ayaa hore u sheegtay in ay isna aqbali doonin in laga xadgudbo qoondada siyaasadeed ee haweenka taasoo muuqata mid isku indhatirayaan madaxda maamul goboleed dalka si kastaba lama hubo waxay doorashada boob ku socotay ka bedeli doonto aadiska beesha caalamku hayaan maamulada iyo dowladda dhexe waxaase laga dhursugayaa natiijada dadaalada ilaa iminka ay muujinayaan markana daawadayaal waxaa idin soo gudbinaynaa farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo dejiyay shirqoolkii ugu weynaa ee la rabeen hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe marka lagu daabacay wargeyska The Star ee ka soo baxa Kenya ayaa maanta oo Sabti ah ayaa waxa ciwaan looga dhigay isafgaranwaa ka taagan doorashada Soomaaliya ee dib u dhac ku yimid 25 bishan Febraayo 2022 ee lagu ballamay in lagu soo gabagabeeyo markii la eego madaxda Soomaalida ayaa bishii hore ku heshiiyay shirka dhaca magaalada Muqdisho ayaana isku waafaqay in doorashada lagu soo gabagabeeyo muddo kooban lagana dib mari karin
25 bisha Febraayo hadda lagu jiro iyadoo doorashada ay socoto ayaa wax wargeysku sheegay inay jiraan siyaasiyiin ka soo jeeda Jubbaland iyo maleeshiyaad qoranaya si u burburiyaan maamulka hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ila wareed ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa wargeyska The Star sheegay inay sheegayaan in 30 bisha Janaayo magaalada Nairobi kulan ku yeesheen siyaasiyiin uu hogaaminayo wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar halkaas oo shirkooda ka soo saareen qorshe lagu qalgalgelinayo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe maqalka wargeyska oo u muuqday inuu xog ka helay siyaasiyiinta shiray saraakiisha dowladda Soomaaliya iyo xubno ka mid ah maamulka Jubbaland ayaa wuxuu sheegay shakhsiyaad uu ku jiro Cabdi Cali Raagi la taliyaha madaxweyne Farmaajo dhinaca arrimaha doorashooyinka oo qayb ka yeeshay siyaasiyiinta mucaaradka Axmed Madoobe qorshe la dejinayo inuu raay ku leeyahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dhawaan tagay magaalada Nairobi isla markaana siyaasad ahaan saaxiib loo ah madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kana soo horjeeda madaxweyne Farmaajo in markale dib loo doorto xogta wargeyska Kenya ka soo baxay ayaa saako Sabtida shaaciyay wuxuu ku sheegay inuu hub sharci darro la doonayo in Kismaayo laga dejiyo si maamulka Jubbaland lagu burburiyo kiiska Raagi ayaa yimid dhowr bilood kadib markii Jubbaland ay garab ka heshay Puntland ay diidanay inay ka qayb galaan wadahadalada lala galiyo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa soo baxay khilaafyo u dhexeeya dowladda federaalka iyo Jubbaland gaar ahaan kadib markii Axmed Madoobe dib loo doortay bishii Agoosto sanadkii 2019 doorashada ay qaadacday filan Soomaaliya balse markii dambena heshiis la gaaray ku ogolaaday in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe 2 sano si ku meel gaar ah xulka u sii hayo meesha caalamka ayaa si weyn u maalgelisay hanaanka siyaasadeed ayaana ka dhawaajisay inay ka walacsan tahay xiisada doorashada iyadoo cadaadis ku saaraysa dhinacyada qusaya inay ka soo baxaan waqtiga loo qabtay ee 25 Febraayo oo 21 maalmood ka harsan tahay Mareykanka iyo IGAD ayaa ka cabsi qaba xasilloonida dalka iyadoo ka digtay in doorashada waqtigeeda lagu qaban waayo kana la karto xaalad aan u fiicneen dadka iyo dalka ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada Midoobay ayaa Arbacadii la kulmay Axmed Cawil Warsame oo ah gudoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashada federaalka Soomaaliya waxayna ka wada hadleen diyaar garowga doorashada ee socota qoondada haweenka 30% iyo dhamaystirka hab doorasho lagu kalsoonaan karo warka cusub ee daabacday wargeyska The Star ee Nairobi ka soo baxaya maanta Sabtida ma jirto mas'uul ka hadlay oo ka tirsan Jubbaland kana warbixin kara xogta uu sheegay in siyaasiyiinku leeyihiin dibinta maamulka uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe gudan daawadayaal halkaas aan ku soo gabagabeeyna warka Garmaal TV aad ka daawanayseen nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh